hawshaan runtii owl aad iyo aad u qurux badan bilow ah oo Soomaaliya taariikhdeedii hore ee dawladnimada waayihii dabada u dambeeyay khaasatan aan hore loo soo marin waaye marka runtii hawl aad iyo aad u fiican dadaal iyo aad u badan la geliyay oo bilow ah waaye waxaan rajaynaynaa xilliyada ka dambeeyay inay intaan ka sii quruxsanaan doonto waxa la isku qiimeynayna intaan ka badan doonaan bilow maadaama ay tahay dadka waxaan u fahmay dadka yaan laga waalinin imtixaan yaro multiple choice ah loo dhiibay imtixaan subjective oo dadka yaan loo dhiibin in la yiri laana activities yaa la isku qiimeeyay activitieski hore loo ballan qaaday meeqa ka fushay maxaa ka dhiman iyo xuduurkii shaqadii ma la soo tagay saaka mise lama soo tagin inta la soo laakiin qualitative-ki dhinaci ahay ayaa ka maqan oo activity-gan waa la qabtay la leeyahay sidiisaba muxuu soo kordhiyey ummadda muxuu ku soo kordhiyey dawladnimada muxuu ku soo kordhiyey activity noocee ah ayuu ahaa laakiin daaraa la dhisay halleeyahay daartii waa la dhisay haye marka hadda bilow ay ahayd bilow fiican ay ahayd laakiin hal la ogaado wasaaradaha hawshu waa isii tanna waa soconaysaa oo activity-gi ah side kalena waa kusii darsoomi doonaa saan isleeyahay anigu ma ogi ragga hawsha gacanta ku hayo sidii ay u qorshaysteen middaas waa middaas midda kale waxay tahay dadka waa la abaalmariyey loo arkay in ay performancegooda fiicnaay intii kalena ciqaab waxaa looga dhigay inaan la abaalmarin taas lafsadeedana waa iyadana waxaa isleeyahay waa weakness kaloo jira meeshaan waa in lagu kala baxaa ninkii wax qabtay iyo ninkaan wax qabanin inaanay isku mid noqonin waay maanta waxaan daafurnay CDU Center for Delivery Unit Soomaaliya yaa la soo furay teamka delivery unitka inay the whole time engaged ahaadaan wasaaradii waxaan punishment wax la isku ciqaabaya ma aha ciqaab ma aha in delivery-gii laga xisaabtamo oo la isla arko marka teamka delivery unitka shaqada ugu badan yaa ku soo dhici doontaa lianna waxa qabsoomi waayey ama gaabiska galay asbaabay leeyihiin reasonsaa jiro reasonskaas waxaa laga yaabaa wasaaraddii ama hay-addii ama mas-uuliyiintii meesha joogtay walax ka baxsan beyond their ability wax aanay awoodin oo aanay hayn aanay soo heli karin in ay ahayd sababta ay gaabiska u dhacay mas-uuliyaddaas delivery unitka iskale meesha inay tagaan arkaan wixii wasaaradda ama hay-adda ama leadershipka joogaahi capacitygooda ama awooddooda ka baxsan ayagaa laga oo in la qabtana ay ahayd delivery unitka laga rabaa inay waxaas ay ka saacidaan wasaaraddaas iyo xafiiska prime ministerka sidii ay u heli lahayd wixii ay shaqada ku qaban lahayd wixii dee xataa markaas xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan aan la heli karin waa wax markaas annaga dhan naga wada maqan annaan heli karin marka hore oo la dejinayo targetiska iyo objectiveska ayaana fiican in la ogaado waxaan horta wax la qaban kara ma yihiin wax qurux badan oo aan la qaban karin oo la og yahay caqabado waaweyn oo aan laga gudbi karin ama awood aan loo lahayn in ay hor taagan yihiin marka hore yaan la degsanin ama haddii la degsanay xataa hala cayimo hala yidhaha intaasaan ka qabanaynaa meeshaas waaye meesha u dambaysoo la gaaraya laakiin meeshaasaan soo gaarsiinayn haddii kalena waxaaba sahlan oona badan inta muhiimkana ah lana qaban karo aad iyo aad ayay muhiim u tahay oo aan wax qurux badan oo dhaldhalaalayo oo aan la qaban karin ama la gaari karin aanan muxuu ahaay waqti badan aan la isaga dhumin marka hawshaas runtii prime ministerka iyo xafiiskiisa iyo dadka muxuu ahaay NTB-da ka shaqeeyey wasaaradaha dhammaan aad iyo aad ayaan u bogaadinaya waa frontier cusub oo hadda aan saaminayno 100% iyo wax u dhow iyo intaanba inaan soo gaarin lafsadeeda wax aad iyo aad u weyn ayay ahayd su'aalaha data aan weydiiyay dadka markii presentation isma waxa kamid ah wasaarada performance-geeda fiican yahay attendance-geeda waa liitaa warse performance ku fiicnaa shaqaalaheeda waaba jiifeen guriga jiifeen asbaabo kale iyo reasons kale iyo qalabkii maxaan ku iraahdaa attendance-gaan la geynin iyo waxyaabaha ayaa la sheegay midna performance-geeda liita laakiin waa buuxda attendance-gi waa 80 iyo 90 iyo boqolkiiba sii mara oo dadkaan meesha maxaa ma ku fadhi ku dirarayeen maxay sameynayeen shaqadii la rabay waa tanaayo boqolkiiba 65 iyo boqolkiiba 50 iyo boqolkiiba 70 iyo wax la leeyahay
attendancegiina waa boqolkiiba 80 iyo intaas la leeyahay meesha ma fadhi ku diriraa yaa ka samaysnaa maxaa ka socday waa su'aalaha yani ka soo bixi tago xaajadan waxaa la yidhaha odayaasheenii hore waxay dhihi xaaje sidii daba ari haddaan loo faydin ma daawoodo xaajadan waa la isaga daba imaanaa waa la isdaba socdaa la iska hari maayo waxa ugu muhiimsan oo haddana maanta aan arkayey oo hawl dhib badan inay tahay oo soo socota ay tiimka u muujinayeen waa merit based recruitmentiga marka horeba dadka in lagu shaqaalaysiiyo meritkooda wiilkan meel ii gee gabadhan xagga iga gee meel maxaan ku iraadaaye jajable ii gee hawshaasi waa lagu dhib qabaa madaxweyne ha dhihin ra-iisul wasaare ha dhihin wasiir ha dhihin xildhibaan ha dhihin qof ka fayow ma laha hawshaas inaan ka baxnaan rabnaa waa ciqaab dadkii mas-uuliyiinta dowladda ahay oo level kastalena ay ku ciqaaban yihiin dalkiina uu ku dabran yahay laanna ninkii capacityga lahay wax yaqiinay ee joogahay waxaa laga yaabaa meel halaygey inuu ka xishoodo iwad meel igey inuu ka xishoodaa laga yaabaa iska joogaba baagamundo uu yahay ama privateka uu shaqo u doonto dadka ugu fiican inay dowladda u shaqeeyaanay ahayd dowladdana iyo xafiisyada dowladduna waa inay soo jiitaan dadka ugu fiican dadka ugu fiican beesa bas laguma soo jiida karo bayroolkiisa oo kor ah oo maxaan ku idhaahdaye bayjegiisa uu cayilan yahay keliya ma aha waa muhiim laakiin keliya ma aha qofku inuu shaqada ku xushmaysan yahay inuu qofku dareemo meeshaan horta wuxuu ku yimid capacitigiisa aqoontiisa dadaalkii uu soo sameeyo dhan miraheedii waa tana meeshaan ay soo gaarsiisay oo dad badan ay soo gaari waayeen intaasaa self satisfaction leh oo qofka uu ku motivation uu qofku ku shaqaynayaaba wuu garanayaa qofka noocaasina duruufaha dalka iyo dhaqaaluhu inuu yar yahay iyo mushaaraadka meeshii la rabay inayna gaaraynin iyo waxaasoo dhan qofku wuu fahmi karaa laakiin midaan markii horeba meesha u yimiday inuu wax ka helo mushaar yar inuu ka helo meel yaroo dhaadhac yaroo laaluush iyo maxaan ku rahda magaciisa yale inuu ka helo markii horeba u yimiday performance indicatorska iyo maxaa KPIs iyo measurementka laga rabay waxa kama shaqaynayaan agtiisa kama shaqaynayaan waxa asalkaana qofka waay qof isku kalsoon xirfadii iyo aqoontii leh aaminsan shaqada u arka karaamo iyo maxaan ku rahdaa cizi inay tahay inuu booska shaqada taga waay so merit based recruitmentiga aad iyo aaday muhiim u tahay kala gaduudahay mariyay waxay dhahan meeshaan qatar waay siyaasad badanaa ku jirto isqabqabsi badanaa ku jiro magaciisa war wax ku jira ma jiraan so annagu mihin isqabqabsiga annagaa nagu yimaado annagaa diyaar u ah dadka soomaaliyeed ha loo cadaalad falo isqabqabsiga ka imaanaya diyaaraan u nahay wax kastoo culays oo ka yimaado inaan qaadanaan diyaar u nahay laanna merit based haddii la sameeyo waa bini aadanaan nahay boqolkiiba boqol wax perfect ma jirayaan laakiin waxaan usii dhowaanay meeshii perfectigeeda usii dhowaan markaan saas ka dhigan oo la yiraahdo xaliimana muxuu ahaay capacitigeeda iyo awooddeeda meesha ku timid caalina sidoo kale awooddiisa iyo capacitigiisu ku yimid oo reerebel kuma imaan dalka runtii culaysaa ka jira dad muwaadin soomaaliyeeda waxaa ka taagan quus inuu gaaro yiraa kolley anigu reerebel aan ahay meel tegi maayo muxuu ahaay shahaadooyinka waaweyn maxay tarayaan waraan meelaha iyo privateka iyo meelaha iyo hay-adaha samafalka iyo dibadda iyo meelaha aan shaqo ka doonto sax ma aha dowladnimada dhexdeeda laandheere iyo laangaabka ma jirto doqonnimadeenay u jirtaa meel kastay ka jirtaa laakiin waxay u jirtaa dhiiranaan la-aanteennay u jirtaa inaan dhiiro weynay oo isbeddelka aan ku dhiiro weynay oo waxa fiican aan ku dhiiro weynay ayay u jirtaa haddee waxaan taaganaha muga enough is enough ilaa goormaan muxuu ahay sii gaba karnaa oo dadka mas-uuliyiinta inta waxgaradka ah indheergaradka ee dalka joogtahay ilaa goormaa khaladka iyo waxa qalloocan annagoo u jeedno aan ka sii waxaysan karnaa mid aan war sideedaba ogaada yaa tolahay nin la haddaad aragtaan dowladnimo waxba kuma laha nin ra'yi waayey aqoon waayey maxaan ku yidhahdaa capacity iyo karti meel uu ku maro waayey waayo horta ninka yaa ii tolahay yidhaahdo war geelii la kala dhacayay ceelkii laysku garbinaya ma joogno
dowladnimo casri oo qarnigii 21aad joogtaan rabnaa adduunyada horu martay oo socotay aan rabnaa inaan hiigsano ka daba tagno la tartano عارا مركا هاللو ديار جروبو شقادو وشقا قروح بدن والدنيا آخرة بكو وناكسن لكن دي بدن وحكستو وناكسن قيم الله بحيي إليهن عنان يقبقبسي يؤاد يوحن هداك عرنو ماشان جوجينا سومالنا هوري اوغا مامادي بارتيسيقان باري اوما كورتو وواحد هذا شان إلى 20 سنة aan maxaa u dhaqaaqi laanahay marka hadda dhaqaaqi maagnayna lugaha la isaga dhageeyahay waa cabsi wax kale Soomaali inay qurxanaatay horu marto oo ay horu u socoto qof walba Soomaali waa jecel yahay ma jecla mida Soomaali hoog la jecel aan leenahay ma jiro laakiin cabsi karti yari dhiiranaan la'aan waxaas waaye waxa marka ragga qaarkiisna ka qaylisina annagana meesha nagu hayo waa ka gudbaynaa ilaahay inkiis dalkan dal fiican wax kasto dal fiican oo lahaan lahay leh wax kasto dal oo ku hormari kara leh wax kasto ummadi ay karaamo ku yeelan lahayd lahaanahay annaga baa meesha ku hayno ku celinayno maya xaggay ka dhacday reer hebela caroonayo koox hebela caroonayso ama sida lagu yiraa ama lagu eedeeyaa ama lagu waxeeya bas waayo waxaan meesha u fadhino markaas ama marka qaarkood waa isu su'aalay war adiga adduunyada waaba aragtay waxa dawlad waxa jeclaan ma baahis aakhirada say u taala marmarad isu su'aalay xataa لأن الظلم أدو جديد يقلعنان أدو جديد إنها كقرصنا إسلاذا يا نجده وروانك سكر تمجان كقرصنا منه وسعوننا هلو ديار جروبه دولة دمدا لان داريا لان قاب ملا نوال بكرتي دي سي كاباسيتي دي سي أقونتي سو كم هالمريا سيستم كأكلا مالمري لهاي إلهي إذن كيس وكيرين هدي أليرا لكن ديرنا يا اللي كواين نكي أن ديرن كرينو إسكتك لو آذين مايو لو قبصان مايو لو حقن مايو لو وحين مايو ترتيب ورهوشان محوها هاي حمزة عبد برو أديها محوها بلايدان سؤال بشيء نيا وقف كاخر توكل وديبو هل يرى أنت كبحو بريتو لا هذا مايو ننفضي ميال لك ذكره ننفضيه ما لك ذكره لو هذا مايو هذا سيد هذا بناك جوكتو هذا وح هذين يقول هذا إسكسال المكتة هذا واحد هذا سال لكن رجعان يقبلهن مش جو وزاد جو مركي هربا waxaas duruufo ah oo jiro dhan hadana intii ugu roonaydo markaas la soo haaban kare waay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in dalka meesha aan ka dhaqaajino for the sake of Somalia anagoo wax walba u sameynayno waana la xaqxaganaya waana la eedeynaya waana la caynaya maqaar adag oo aan cirbadaha eedu aanay duri karin inaan yeelanaana laga raba waana yeelanaynaa ilaahay idankiis aad iyo aad ayaad u maasantiin hambalyo waadin hambalyeynaya markale shaqo wanaagsan